maxaad kala socotaa waxyaabaha ka qarsoon ee ka dhacaya gudaha Soomaaliya waqti xaadirkan la joogo dalka Soomaaliya dadkii beeraleyda ahaa waxa loo qaybiyay kaarar bishii ay ku soo dhacayso lacag ka yar $100 waxa ayna badankood joojiyeen beerihii ay falan jireen dalagii ay soo saari jireen dadna ay u iibgeyn jireen dalka intiisa kale taa badalkeeda dalka waxa la keenaa oo si aad iyo aad loo soo dhoofiyaa waxyaabihii dalka laga heli jiray oo ka bixi jiray sida galeydii masagadii sisintii ukuntii iyo waxyaabo kale oo fara badan xitaa waxa la sheegayaa carrakaawadii caadiga ahayd in dibadda laga keenayo oo dalka loo soo dhoofinayo taas oo sababaysa in Soomaaliya ay noqon doonto sanadaha soo socda wadan 100% ku tiirsan wax dibadda laga keeno oo wax kastaahi ay suuragal tahay inay ka suulaan qof dhaqaaqa oo wax qabsada oo dibadda aan ku tiirsanayna uusan jiri doonin arrintan maxaad kala socotaa dawladuse maxay ka ogtahay sida wada ognahay 15 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya labadii sanaba waxa ka dhacda abaar ba'an oo geysata macluul sababta dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo aad iyo aad u baaxad weyn marka ay ku dhufato abaar noocaas waxaan aragnaa dad Soomaaliyeed dhalinyaro iyo siyaasiyiin is abaabulo oo yiraahda waxaan u gurmanaynaa dadka dhibaataysan ee abaartu ay ku dhufatay waqti xaadirkaas ma aragno hay'ado samafal oo u gurmanaya dadkaas dhibaatadu haysato hadii ay jiraanna aad ay u yar yihiin dadka macluusha u dhimanaya haraadka iyo baahida u dhimanaya ma aragno hay'ado isku xilqaama ee yiraahda waxaan caawinaynaa dadka oo biyo u geenayna ama raashin siinayna ma aragno hadii la arkana waa wax iska yar hagaag laakiin marka wadanka uu roob ka corto oo gugi ama deertii midkood uu corto cirku uu godlado la arko in xilligii la joogo roobku uu di'i lahaa webigii uu biyo keeno ayaan aragnaa hay'ad meel ay joogtaba in ay wadanka gudihiisa timaado dadna dadkii shacabka ahaa kaamam ay ku aruuriso dadkii beeraleyda ahaa oo xoolo dhaqatada ahaa in ay kaamam ku aruuriso Muqdisho duleedkeeda hadaad joogto Muqdisho duleedkeeda waxa kaamam ka dhisan waad aragtay kaamamkaas ay ku aruuriyaan hay'ado badan oo magacyadooda aad loo yaqaano ayaana arinta qabta kaarar ayaa la siiyaa lacag $60 ilaa $70 u dhaxaysa ay ku soo dhacdo calaa qoys waxaana la yiraahdaa abaar ayaad ka soo baxdeen waad soo dhibtooteen waxa weeye iska nasta lacagta qaata raashinkaana ma aragtaa wax yar raashin qaata teendooyin yarna waa la siiyaa ogow dadka waxa ay ka yimaadeen masaafo 100 ilaa 200 oo kiiloomitir ah waxa loogu wacay oo inay halkan yimaadaan loo abaabulana qofkii garaadli uu fahmi karaa kaliya waa in ay ka tanaasulaan in ay wax beertaan xoolana dhaqdaan ari iyo lo iyo geel mid kay lahaayeen bay inay ka tanaasulaan beerahoodina ay iska dhaafaan inta ayaa loogu wacay hadaadan ogeyn hadaba ogow dawladuna waa ay ogtahay sababtoo mashaariicdan iyo injooyadan ka socda dalka dadkan hogaaminaya iyada ayaa fasax siisay iyada ayaana maaragtay wax kasta ku hadaba anaga shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay maxaa nala gudboon inaga waxa nala gudboon hadaan shacabka Soomaaliyeed nahay in dadkeena aan dhiiri gelino wax soo saarka dalkeenana aan cunno oo aan iibsano inaguna aan suuq u noqono hadii galey la soo saaro galeydii aan iibsano digirtii iibsano qudaartii iibsano sisintii iibsano wax kasta aan iibsano taaba nala gudboon hadaan inagu shacabkeenahay dawladana waxa la gudboon in ay dib isugu laabato deedna ragaadinta lagu hayo wax soo saarka dalka iyo bulshada ay ka hortagto taa ayaa la gudboon uba maleeymaayo arintaas inay sameynayaan laakiin tala noocaas ayaa u soo jeedinaya hadaadan ogeyn hadda ogow aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abtiyo may maqashaa aad u weyn sharlaaw ilmahan soo dirayaaye hoy igu diyaari oo abtiyo macnaha ula jeeda sidee aad u keenin dalkii afar jir baa u yaraan ah alifna looma bilaabin ayam soo wallah oo mid aayad quraan ah akhriyaan la helayay ayagoo jooga agtaada u dhigo dugsiga calaashan online oo sidee abtiyo ayagoon aadin banaanka oo aqalkooda dhex jooga macallin kuugu aqrinaya online kuugu dhigay ayaa kuugu diyaar ah Al-Sunna Institute macadka Al-Sunna oo qaab online wax looga barto adigoo dalka ama dibadda jooga waxyaalaha ka baran doonto waxa kamid ah barashada hikada barashada quraanka barashada xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam barashada ducooyinka iyo guud ahaan waxyaalaha ku tacalluqa shariicada islaamka Al-Sunna Institute wax ka baro adigoo jooga dalka ama dibadda kuna baro adigoo jooga gurigaaga
wixii faahfaahintaas dheeri kala xiriir lambarada iyo jiimeelada shashada ku qoran